السلام عليكم كسو دوادا برامجka horyaalka ciyaaraha adduunka qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Benzema oo waqtigii geerida guul ku hogaamiyay kooxda Real Madrid Barcelona oo garaacday kooxda Valladolid iyo Lewandowski oo wacdar dhigay kulankaasi qodobada kale ee barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Chelsea oo si lama filaan ah ugu dhaqaaqaysa saxiixa xidiga kooxda Crystal Palace ee Wilfried Zaha barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka fadlan hadaad ku cusub tahay like saar subscribe and share graysi barnaamijkana asxaab badan u gaaro mahadsanidina xidiga kooxda Real Madrid Karim Benzema ayaa guul ku hogaamiyay kooxdiisa Real Madrid kadib guul ay ka gaareen kooxda Espanyol kadib ciyaarta qaybta labaad Real Madrid oo lagu adkeeyay waxay dhamaadkii guul muhiim ah ay ka gaareen kooxda Espanyol oo ugu talaabsadeen 3-1 Espanyol iyo Real Madrid waxay nasiinyada ku aadeen barbardhac min hal gool xilli Real Madrid ay qaybtaasi hore ay gacan sareysay ciyaarta isfahan iyo bandhig wacan ayay muujiyeen ciyaartoyda Real Madrid qaybtii hore ciyaarta waxayna ku horeeyeen goolka koowaad ciyaarta waxaana u dhaliyay xidiga GR balse dhamaadkii ayaa la barbareeyay goolkiisa qaybta labaad Espanyol waxay sameysay fursado aad muhiim u ah waxayna qalqalgeliyeen shabaqa kooxda Real Madrid Espanyol kubad degdegsiimo badan iyo kalsooni ayay ku ciyaareysay qaybta labaad ciyaarta waxayna weerar rogaal celis ay ku qaadayeen shabaqa uu tibada kadwa goolahayaha ka ahaa waxaana Espanyol mar walba ay ku dadaaleysay sidii ciyaarta isbedel fiican ay ugu sameyn lahayd dhamaadkii ciyaarta labada kooxood ayaa sameeyay fursado aad muhiim u ah inkastoo midnaan ka faa'iideysan fursadahaasi Real ayaa xalka ka maqnaa waxayna degdegsiimo kala kulmeysay xidigaha kooxda Espanyol inkastoo Real Madrid markii dambe si sahlan ay ku qaadatay 3 dhibcood ee garoonka si walba ahaatee Benzema ayaa waqtigii geerida u dhaliyay goolka guusha gaar ahaan daqiiqadii 88 kadib kubad uu ka shaqeeyay Rodri waxaana Espanyol la siiyay kaarka cas waqtigii geerida ilaa Real Madrid ay helaan goolka saddexaad isla markaana goolkaasi waxaa sii raacsaday Karim Benzema kooxda Barcelona ayaa garaacday kooxda Valladolid Robert Lewandowski ayaa kulankaasi wacdar dhigay kooxda Barcelona ayaa garaacday kooxda Valladolid kulan ka dhacay garoonka Camp Nou kana tirsanaa horyaalka liigaha dalka Spain Barcelona ayaa si dardar leh ku bilaabatay ciyaarta iyadoo hareereysay kooxda Valladolid kuwaasi oo adeegsanayay weerar rogaal celis kooxda Xavi ayaa si cajiib isugu dhiibaysay baasaska iyagoo xitaa mararka qaar muddo kooban u diidayay kooxda Valladolid Barcelona ayaa daqiiqadii 12aad ku dhawaatay in ay dhaliso goolka koowaad laakiin kubaddu Lewandowski madaxa la helay ayaa ku dhacday birta goolka Valladolid Robert Lewandowski ayaa mar kale daqiiqadii 22aad ku dhawaaday in uu hogaanka u dhiibo kooxdiisa laakiin kubadda xidiga ku laaday ayaa ku dhacday birta daqiiqadii 24aad ayaa Barcelona dhalisay goolka koowaad waxaana u dhaliyay xidiga Robert Lewandowski kaasi hogaanka u dhiibay kooxdiisa Barcelona ciyaartana ka dhigay 1-0 Barcelona ayaa sii waday dadaalka ku aadan raadinta goolal kale iyagoo aan wax fursad siinaynin kooxda martida u ahayd ee Valladolid daqiiqadii 43aad ayaa Barcelona dhalisay goolka labaad waxaana u dhaliyay xidiga Pedro kaasi hogaanka u sii dheereeyay kooxdiisa Barcelona waxaa sidaas ku dhamaatay qaybtii hore ciyaarta ay Barcelona ahayd koox dhan walba ka fiicneed hadii natiijo ahaan iyo hadii la yiraahdo qaab ciyaareed ahaan qaybtii dambe ayaa Barcelona ku bilaabatay si dardar leh iyaga oo doonayay in ay ciyaarta xilli hore ay dilaan ay natiijo fiican ay garoonka kala baxaan daqiiqadii 64aad ayaa Robert Lewandowski dhaliyay goolka saddexaad kaasi oo ciyaarta ka dhigay
saddex waxaana uu ahaa goolkiisa labaad ee kulankaasi. kooxda Barcelona ayaa daqiiqadii 90aad oo lagu daray 2 daqiiqo dheeri ah dhelisay goolka afraad waxaana u dheliyay xidiga Sergio Roberto kaasi oo ciyaarta ka dhigay 4-0 oo kooxda Barcelona guul ay kaga gaartay kooxda Valladolid. tababaraha kooxda Wolves ayaa fariin u diray kooxda Liverpool kuna saabsan xidiga Ruben Neves. tababaraha kooxda Wolves Bruno ayaa ka hadlay wararka kabtankiisa Ruben Neves lala xiriirinayo kooxda Liverpool ayaa si aad ah loola xiriirinaya xidiga qadka dhexe ee Ruben Neves xilli Klopp uu suuqa ugu jiro saxiixa xidiga qad dhexe ah. Klopp ayaa xidiga Ruben Neves u calaamaystay bartilmaameedkiisa koowaad uu doonayo inuu ku xoojiyo kooxdiisa ka hor intuusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. tababare Bruno ayaa wax laga weydiiyay wararka xidigan reer Portugal la xiriirinaya kooxda Liverpool inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaana uu xaqiijiyay in Ruben Neves uu sii joogi doono kooxda Wolves wuxuuna sheegay in 99% Neves uu ku faraxsan yahay halkaan uuna sii joogi doona ayuu yiri tababaraha kooxda Wolves. Liverpool ayaa la sugayaa in ay dalab rasmi ah ka gudbiso saxiixa xidigan qadka dhexe ka hor intuusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaagana. Chelsea ayaa si lama filaan ah ugu dhaqaaqaysa saxiixa xidiga Wilfried Zaha. kooxda Chelsea ayaa dib u cusboonaysiisay xiisihii ay u qabtay Wilfried Zaha waxayna raadinayaan in ay la soo saxiixdaan xidigan Crystal Palace ka hor intuusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. xidiga reer Ivory Coast ayaa bartilmaameed u ahaa Chelsea xagaagii hore laakiin Crystal Palace ayaa dalbatay lacag gaaraysa 90 milyan oo xidigan ay sheegeen inay ku iibinayaan. Chelsea ayaa diiday in ay bixiso lacagtaasi laakiin Zaha ayaa hal sano uga harsan yahay heshiiska Crystal Palace taasi oo cadaadis ku saaraysa kooxda Crystal Palace. Patrick Vieira ayaa doonaya inuu sii haysto Zaha laakiin waxay Crystal Palace ay ogtahay in xidigan uu doonayo ka ciyaarista Champions League. Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqayso saxiixa xidigan ka hor intuusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaagana. Chelsea ayaa aaminsan in lacag aad u jaban ay ku heli karto xidigan garabka ka ciyaara waxayna doonayaan inay ku xoojiyaan weerarkooda xilli ciyaareedkana. guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. fadlan hadaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe, share garaysi barnaamijkeena asxaab badan u gaaro.